waxay igala soo hadlayaa xagga iyo Italia gobolka Sicilia gaar ahaan Palermo weynkan oo walaalkii rag iyo dumarba oo idile anoo rabo waxa weeyaan qalbiga la jaaro maanta barnaamijku waa maxay inaynu ilaalino nafteena nafna ma jecla dhibaato inay maanta aad naftaadu dhibaatooto ma jeclid markaasee u jeclaanaysaa inay naf kala dhibaatooto tusaale ahaan markaynu rabno inay nafteena ilaalino sidaynu ilaalinayno inaynu ilaalino sida dadka fiican nafahooga u ilaaliyaan bulshadu way kala qaab fiican tahay bulshadu way kala dhaqan duwan tahay bulshadu way kala sii waxa weeyaan xeelad dheer tahay dad baa ku dhex jira bulshada lagu ammaanayo qofka aragtaaba ammaanayo maxaa lagu ammaanayaa naftiisu ilaaliyey afkiisu ilaashaday wax badan baa ka nabadgalay wax badanna waa uu nabadgeliyey wax badanna uu iska nabadgeliyey amba nin ha noqdo amba qof dumar ha noqdo dadka noocaasa bulshada ku dhex jira dadkaasi maxay sameeyaan waxyaalo badan bay iska ilaaliyaan waxay miisaamaan oo ay ilaaliyaan kelmadaha afkooga ka soo baxaya wax kasta iskagama hadlaan wuxuu afkoogu soo qabto kuma hadlaan way ilaaliyaan say u ilaalinayaan dareenkooga iyo damiirkooga ayay u ilaaliyaan qalbigooga iyo waxa weeyaan noloshooda say u ilaalinayaan dhawaalaha u ilaaliyaan maxay sameeyaan waa dad marka hore garta amaamirtu ilaahay subxaanahu wa tacaala faray oo ka soo baxa wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala faray mar labaad waa dad ka nasahan qabyaalad bulshada dad noocaasa ku jira qabyaalad iyo ninjeclaysi ka nasahan aflagaado ka nasahan jaajuusnimo iyo xaasidnimo iyo xan ka nasahan dadka noocaasa jira ka nasahan waxaan danahooga ahayn oo naftooda u roon mooyaane aan wax kala samayn aan ku mashquulin wax aan iyagu waxa weeyaan aan faa'iida ka soo gelin dad noocaasa ayaa jira dadkaa waa inaynu ku dayanaa dadka waa inaynu saaxiib ka dhiganaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay saaxiibka fiican waa kuma waa cadarkiisa guudgood saaxiibka xunno uu soo ura waa qarmuun urtaka ugu qarmuun bulshada noocaasaa jira markaa maxaynu u baahannahay si waxaas u yaraado oo u yaraato waxa weeye xataa dad qayliya madag allah yaay ay bac iskaga xidhan tahay waxaan maa laygu falayey maxaan waa sidan waxaan maxaa laga waday waxaan baa laygu sameeyey faji baa lay walaaqay sidan baa laygu sameeyey marka hore qofkaasi afkiisa ka adkaan waayo marka hore iska daldalmay qof aan iska hadal oon sirtiisa laga hayna cid waxba kama sheegto haddaad aragto qof wax laga sheegay oo qof u warramay isaga unbaa warramay amba si kala ha ugu warramo amba si kala ha warramo waa qof afkiisa haysan waaye oo naftiisa ilaalin waaye oo qiimihiisa ilaalin waaye hadhow toole maxaa la xanaanay adaaba daldalmay adaaba iska warramay adaa baahidaada ka sheekeeyey adaa hawshaada ka sheekeeyey adaa qaninimadaada ka sheekeeyey adaa waxaad samaysa ka sheekeeyey talabaadna dee faan baynu ka dhiganaa inagu haddaynu soomaalinahay waxaa inay nafteena waxa weeyaan ay halaag usoo horseegayso aakhiriya adduunkaba haddaynu soomaalinahay mahaysan inaad maanta una sheekayso faanto rag iyo dumar maanta inaad faanto sida caynkan kan waxaas nacan ma ogid inaad naftaada dhaleecadaynayso inaad naftaada hoos u dhigayso inaad naftaada wax badan ay horumar lahayd dad badan maxay u horumar lahayn dad badan wax badan haystaan maxay u guulaysan lahayn maxay nolosha guulo badan u gaadhaan naftoodii bay dulminayaan ee eryanayaan naftoodii bay ka sheekaynayaan war naftaada hadday guulaysatay hadday guulaysantay taariikhdaa ku qoraysa hadda adigu waxaa tahay rag iyo dumarba waa lagu qoraya taariikhdan ba wax qorta adigu ha iska sheekayn hadhow toolo laga yaabo waxaad ka sheekaynaysaa qaar badan oo iska sheekeeyaa jira sidan hadhow toolo la arkay isagoo sugaal ku ka dhacdhacaya waasoo adigii balaayo sheeganaya
waxba si kaa noqon kara adoo waxaan isku huba wax si kaa noqon kara waxyaalahaas waxay ka mid yihiin inaad ilaaliso naftaada inaad naftaada ilaaliso aday kuu fiicanta cid kale uma fiicna cid kale uma fiicna aday kuu wanaagsan tahay oo ay kuu qurux badan tahay inaad walaal naftaada ilaaliso qofkaas aynu ka soo sheekaynay ee fiican ee markasta bulshadu ammaanaysaa waa qof wax badan ka nasahan assalaamu calaykum maasha allah walaal sidan baa layidhi walaal waa danahooga walaal xakaa maxaa ka dhacay walaal orod soo yar eeg dadka fiican orod baa soo yar eeg walaal maanta maxaa layidhi caynkan inta wanaaga dad noocaasaa jira dadka kale iska jira dee ma jecel inaan xumaanta ka sheekeeyo oon dadka xun ka sheekeeyo qofkii xun yahay laakiin waxaynu soo qaadaynaa dadka wanaagsan aynu ku dayano dadka wanaagsan ee maanta inala nool iska dhaaf ciddintay dadka inala nool ee fiifiican ee akhlaaqda leh ee culummo leh ee wax kasta leh ee nawooyin leh ee walaalo leh ee cid walba leh aynu ku dayano naftaada haddaad hagaajiso oo naftaada bari yeesho u fiirso dadku waxay ku kala qiimo badan qofku naftiisa ka ilaalin og yahay ayuu bulshada waxa weeyaan xataa kaga xigmad badan yahay kaga sharaf badan yahay xataa waa loo baneeyaa waayo wax kastuu ku hadlaya hadalkiisa miisaan iskama hadlo iskama daldalmo kama sheekeeyo noloshiisa kama sheekeeyo nolol kale cid kale kama sheekeeyo bad kale ma galo qofkaasi rag iyo dumarba qofkaasi wuxuu ka sheekeeyaa wixii waxa weeyaan aan waxba kaga soo noqonayn dadka noocaasa ku nool Soomaaliya dadka noocaasa Soomaali ka buuxda rag iyo dumarba dadkaasaa buuxa Soomaali dadkaasaa qiimo iyo sharaf u leh Soomaali dadkaynu ku noolnoo ilaahay xataa inoogu naxariista waa dadkaas marka haddaynu Soomaali nahay ma eegno bulshada dadka qiimaha inagu dhexle ma soo hadal qaadno ma eegno ilaa inaad adiga tahaa laga yaaba ay taabanay inuu qof kale yahaa laga yaaba inaan aniga ahay baa laga yaaba marka xagga wanaagga xagga karaamadu waxay ku imanaysaa markasta naftaada ilaaliso tusaale ahaan hadda mid yar ku yar dabadao iyadoo barnaamijka aani ku jirin laakiin ay idinka cudur daareen ku dabadaro bahasha la ilaaha qabyaaladda qof kastaba wuxuu yidhaha way xun tahay haddanaba waxaa keliyaate sharciyeysa waxaa keliyaate dulmina ha noqoto sharci darana ha noqoto waxaa keliyaate ka shaqaysa waddanka Soomaaliya Soomaali meel kasta joogto bahasha ka shaqaysa in qabyaalad la isticmaala ma xumo laakiin inaad wax badan tusaale ahaan aad diintaba uga baxdo ka waran reerkiina iyo qabiilkiina wax badan samayso inaad qabiilkiina iyo reerkiina ummado dhan ku baabiisa ka waran oo waxa weeyaan jiritaan dhan ummad dhan ilaa adigu gebigaagu waa in yar baad noolaanaysaa 60 sano 70 sano dad caafimaad ilaahay subxaana watacaala ku siiyo haddaad ku baabiisood ku dudumiso ka waran qabiil taas maaha waa in qabiilku aad waxa weeyaan dadkii aad waxa weeyaan is leedahay hadii aad wax ugu qabataa ma sha Allah ummadaha kalena aad walaalaha ee Soomaaliya aad ku dhaleecday oo aad ku dhibin saas qabiil hadda tusaale ahaan qof kasta banay qabiilku tusaale ahaan uu xun yahay ee nafteeda ay hagaajino marka nafteeda hagaajiyo iska ilaaliya caadifada qabyaalada qurunka mijaalaysiga hiilka eexada aafada waxaas oo markaan iska ilaaliyo waxaan noqonayaa nin bulshada ku dhexle magac iyo sharaf adiguna saasa noqonaysaa qof bulshada magac iyo sharaf leh waxyaalahaas marka ay ku ilaalin karaan nafteeda waxay nafteeda ku ilaalin karaan waxyaalahaas mabaanta marka waa bilo oo dhinacaas iyagala soo hadlaya Talyaaniga meesha idin soo hadlaya Sweden ma German ma Scandinavian kuna ma Italy garata ma sha Allah meesha soo marnay meel aad u jecelahay waa meel runtii waxa weeyaan aan haysto waxa weeyaan sharciyeega oo meel aan ku mabsuudahay oo meel aad u qiimo badan weyn Talyaaniga oo meel joogeega bilicdeeda oo meel aan stress iyo buuq iyo qaylo iyo waxa weeyaan balaayo aan lahayn waa meel xitaa dad hal eera haysan waxa weeyaan nolosha aan qaabilayso waa meel farxadeeda iska wadato waa meel qosol badan ma sha Allah ilaahay nabada iyo wanaaga aan ugu wado marka saxaabay intaas ma insha Allah ilaahay naga dhigo kuwa naftooda ilaaliya waayo naftaada dad ilaaliso xataa waxaad ka naga gelaysaa cadaabul qabri cadaabta waxyaalo badan baad ka naga gelaysaa inuu ilaahay wax yar oo wanaag oo sameeyo laga yaabo inuu ilaahay jannada ku geliyo marka walaalayaal mawduucu waa istaga socdaa
kulaylkii hawlihiina waa bilaabeen kulaylkii qabowgaba ilaahay baa inoo keenay alxamdulilah marka weli idima hayo weli maydu saarsaarin juujuurkii laakiin waxaad moodaa maasha allah inaad aad u xiran tihiin oo fiyuuskaan arkayaa siduu u kacay waan arkaya maasha allah intaan waa idigu hambalyaynaya ha yaraato ha badnaato waa idigu hambalyaynaya aadna waa idin salaamayaa waa bilo bilo